ardayda quruxda badan ee hablaha iyo wiilasha isugu jira inaan ka soo qayb galo mahadeeda alla ka sukoow waxaa iska leh rektarka jaamacadda ama guddoomiyaha Professor Yusuf iyo nin saaxiib gaar ah aan isu nahay haddana idinka mid ah bahadiina professorada wax ka dhiga halkan mudane Caydi oo invitationka gurigayga igu keenay xaqiiqatan saaki meel ay wasiiro iyo xildhibaano si gaara loogu casuumay iyo macallimiin iyo rag qiimo leh oo sagootinta akademiyada af Soomaaliga ee qiimaha dalka ugu fadhida aad garanaysaan ayaa waxaa iskugu kaysoo aaday labadii ballan waa taqaanaan cilmiga sarfiga dadka barto haddii ay iltiqaa'u saakinayn ay isku sameeyaan yuxdafu ixdaahuma midkood ayaa la xadfayaa marka aniga haddaad mid xadfaysid volunteer ay noqonin walba mid aad xadfinaysid akademiyada iyadana way cuntami waydi maxay labadaba waxay ka soo jeedaan goobaha cilmiga aad qadarinta u leh maadaama oo cilmigu wax waliba uu ka sareeyo sidaas awgeed ayaa idinkaga soo daahay labadaas miisaan ayaa isu kay qabatay aad baan idin qadarinayaa professorada qiimaha leh ee halkan aan ugu imid oo uu ka mid yahay Professor Abukar Professor Idris Maxamed Usmaan oo ragga anaad runtii baahda waxbarashada ee aan iska duwaashano iyo in kale oo halkaan fadhido aad u qiimo badan oo aan kulligooda isku si u qadarinayo xaqiiqatan aad bay maaragtay u tahay farxad aan la soo koobi karin waliba marka adiga aad tahay baahda waxbarashada nimay qadarin iyo saameyn ku leedahay agtiisa waad ogtihiin oo macallin baan soo ahaa kuliyadda luqadaha wax ka dhiga 4 sano markaan dhamaystay waxay ahayd waxbarashadeedii isla kuliyaddii luqadaha in assistant la igu qaatay anigoo assistant ahayne in markaa kadib aan chance u helay inaan takhasus u aado dal waxbarasho dhalinyaro Soomaaliyeed ee kawaadir ah ay ka soo qalin jabiyeen ee aan walaalanahay dawladaha deeqaha waxbarashada nasiya maanta rag waaweyn ee ama field of education ha noqoto ama dhinaca siyaasadda dawladda ha noqoto hoggaankeeda sarsare ee xilalkaha iyo dalkaasoo abaalkiisa inaydan ilaamin loo baahan yahay waa dalka Suudaan ee dadnimo iyo ehelnimo dhinaca waliba isaga dhownahay xaqiiqatan aqoonta iyo cilmiga ilaahay baa tilmaamay iyo ninka maartay wax bartay inay yihiin dad bulshada sharafta iyo magaca ay ku leeyihiin iyo waxa iyaga markaasi adduunyo iyo aakhira laftirkooda camalkooda marka lagu miisaamo ama la isu dheeli tiro ayaga bulshada inta kale ayaga inuu yahay maqaamkooda kan ugu sareeyo darajo qof ilaahay siiyayna waa tan uu maanta ee hadeertan uu ka hadlaayay Dr. Abukar tii ilaahay ku sii waxa ugu qiimo badan waa aqoonta anoo kaftamayo wax badan waad aragteen xil oo noocyo kala duwan leh ayaa isoo maray intaan siyaasad ku jiray waaniga oo dadka hadda badi lagu yaqaan madaxweynihii 3 bilood ma kartay 3 bilood meel kuma sheego oo markay dhamaatay gudoomiye ku xigeen koowaad oo baarlamaanaan ahaa meel kuma sheego wasiir baan soo noqday arrimaha bulshada meel kuma sheego waxa hadda ii harsan baaqi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo matalaad aan baarlamaanka Soomaaliyeed ku matalayo baarlamaanada dunida carabta
kuwaasne 3 beri baa nooga dhiman oo murashaxiinta farabaas lagu hayaan marka jegadaas oo la isku haysto dhalinyaro fara badan ay u soo jaakato shan sanadkan dalka gudihiisa iyo dibadiisa hadda bakayle waxa la yiri intuu bur ku jiro ayuu bur kale ka daydaydaa aniga meelaha ii qorshaysan haday bahashu aan meel ka soo waayo jaamacadda Frontier iyo agagaarkeeda inaan ka soo dhawaadana waa igu dad ilaan suuq ma gali karo oo sida dadka qaarkiisa bari markay xil waayaan hadda bulad buruuftiina bariyahan waa la iska celiyaa oo soo celiyaa leeyahay ninkii wasiirkii maxabu calay bulad buruufta soo celi ma garatay marka aniga waxaad igu talagalaysaan Professor Yusuf iyo tiimkiisa haday bahashu ay barakama la ay gaarto jeesadayda maartay ha ii ku dul saarnaato volunteerna waxa way iska soo xaadirinayaan Ilaahay yiraahdo xaqiiqatan dad fara badan oo aad u qiimo leh saaxiibkayga Xasan Laki oo idaacadda Frontier oo ayada idaacaddii Soomaaliyeed ee aan nasiib u yeesho maalintii la furaayay inaan adiga xariga ka jaro oo ayadoo wada jir ay joogto horta wax badan oo igu hiilinay qosolba hiilo waa galay ayuu ka buuxiyay wixii markuu aniga magacayga uu sheegay ilaa heer wuxuu gaarsiiyay sida gabdhaha loo shaqaasan xataa bal xad u tagay inuu yiraahdo Xasan waa nin dhalinyaro oo runtii waa laga yaabaa wariyana waayo codkiisa markay maqlaan inta badan ma aragtay wax dadka soo jiita waxa waaye sida hadba wariyaashu ay u kala aktifsan yihiin laakiin markuu iga badiyay oo uu yiraahdo warniyahow fanaaniinta annagan aan u daynay bal tuyaro waxaan iraado ma aqaano markay soo socoto xataa iska dhoola cadeeyay laakiin labada kalimadood aan ku tuuro bal hadaad wax iga dhigi kartid mar uu igu yiri asigoo ii cuskanayo mar aan Suudaan anoo joogo oo wardi gabar uu asaga uu iska caashaqay ninkii saaxiibkiisa ahaa ee isna aan war u hayn aroosna ay ahayd musicna kana uu iskaga waashay oo iska fiirinay fanaankii weynaa kana gabdha yar yar oo qurxoon ayaa asaga uu ku mashquulsan yahay marka sidoo kale baan markii igu soo dhacday oo marka oo tilmaan uu bixinayo marka uu leeyahay war adiga music ku mashquulsanaanine gabadha quruxda badan ee barta halkan kaga taalada mar soo fiiriya asagoo dhahay marka waxaan in saaxiibo wax kale kuma hayo kowde bal caaw laakiin markaas ad ballantaan waxaad ku daydaa bal inaad tiraadid markay soo socoto rabba iga sareeyay sida uu Ilaahay ku sameeyay gabar yahay sadrigaagan buuxiyo gacmahaagan sigib tiran sacbada xariirtay ka sidladan biyuhu siiraacay eegmada siday aniga ila tahay socodkaagan kaliya la siista adduun horta saaxiibkay Xasan Laki intaas ma ugu tabarucayo kullayba gabadhii helya iyo weli baartay ee iyada ku dhiganta warmaay laakiin aniga xaqal saaxiibtinimadii waa maartay kullayba waa iska bixiyay intii aniga la igu xukumay xaqiiqatan aad baan waxbarashada ka sokow markaan dhalinyaro Soomaaliyeed ee xilligan la taagan yahay ee aqoon fursad u heshay iyo waxbarasho xaqiiqatan waalidkii wax soo baray iyo ragii wax soo baray waxay ka duwan yihiin ayna ka mudnaan badan yihiin taariikh ahaan xilligii anaga aan wax soo baranaynay iyo waqtigaasi sida anaga aan ahayn anaga waxaan wax soo baranay ayadoo jaamacadda markaan dhiganayno lacagna la siinayo oo jiifna la siinayo oo cuntona la siinayo markaan soo qalin jabinana magaceena isla markii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha loo soo gudbinayo oo la leeyahay kulliyadda caafimaadka waxa ka soo baxday inta soo arday wasaaradda caafimaadka loo gudbinayaa kulliyadda injineeriya waxa ka soo baxday inta saa loo gudbinayaa howlaha guud iyo hadba wuxuu soo bartay ama mechanical engineering ha noqdo ama maartay handasa maariya ha noqoto sidaas oo kale ardaygii soo barta saxaafadda soo barto oo isla markii wasaaradda warfaafinta loo gudbinayo kii tarbiya soo barto wasaaradda yani qaabkaas ayaa anaga adigoonan ka walwalin waalidkaaga markii adiga ee isaga ee aad qalin jabinaysid
xaqiiqatan inkastoo uu mar waliba waalid uu yahay oo adiga mar waliba xanaanadaada wax uu ku bixiyo iyo inaad adiga aad maanta markay ugu yar tahay yani dadaalka adiga aad dadaalaysid isaga u yahay shidaalka adiga kugu jiro haddana maanta wax waliba waxa lagu kala duwan yahay ardayga maanta wax baranayo wuxuu wax ku bartay juhdi si gaar ah ama waalidkii asaga dhalay ay u gelinayaan oo sponsor gareynayaan ama dadaalkii ayaga ay sameeyeen intii yareed ee wadanka u hartay dadkii aqoonta lahaa ee macallimiintii ahaa ee dallada ka soo bilaabay ee jaamacado wadanka u sameeyay kulliyado kala duwan u abuuray ee ka soo saaray dhalinyaradan quruxda badan ee maanta habliyo wiilal iskugu jiro oo wadankan maanta xaalkiisa sida uu yahay inay wax bartaan go'aansaday ku adkaystay meelaha qaarkooda aad baan runtii aan uga walwali jiray xiliyadan kasii adag ayayna wax baranayeen ayadoo madaaficda isdaafayso oo xaafadba xaafad kale ku dhacayso ay ardada Soomaaliyeed waxay soo mareen waan ognahay kuwii ayagoo qalin jabinay ee dib loo geystay waan ognahay kuwii ayagoo jaamacada u sii socdo oo wadada afgooyay ku sii safrayo wixii ku dhacay waa wada ognahay haddana intaasoo dhan ujeedka waxay ahayd in la hammi jabiyo oo niyadooda hoose u dhacdo shaqo la'aan haddana la yiraahdo ayaa ka horeysay maxaad adiga iswaalaysaa dhibkan dhacayna waad u jeedaa laakiin dhalinyarada ku adkaysatay iyo macallimiintii ayadana sidaas oo kale u garab istaagtay inaad maanta aad wadankiina aad wax u barataan idinka iyo macallimiintii iyo waalidiinta idin bartay waxaan leenahay magaciina jir